walaalayaal ku soo dhawaada barnaamijka. Haddii aan su'aal idin weydiiyo, ma dhacdaa in waxa aad doonayso aad shuruud uga dhigto waxaad is leedahay mustaqbalka ay dhacayaan? Sida, waxaan farxad heli doonaa mustaqbalka marka uu dalku hagaago, waxaan shaqo heli doonaa marka ay dowlad fiican timaado, waxaan dhaqaale samayn doonaa marka aan dal hebel tago, iyo waxyaalo kale oo kuwaan la mid ah oo dhammaantood aad ku xirayso mustaqbalka. Balse aan runta kuu sheego, waxa aad doonayso ma ka helaysid maalin aan ahayn maanta. Arrintaanina waa mid xaqiiq ah. Dadka dunida ku nool oo dhan, ha noqdaan muslimiinta ama kuwa aan muslimka ahayn, waxay isla qirsan yihiin noloshaada dhabta inay tahay tan aad hadda ku nooshahay. Diinteenna Islaamka waxayna baraysaa inaynan dayicin xaaladaha aan hadda ku sugannahay. Nabigeenna Maxamed naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ahaatee wuxuu had iyo jeer ahaa mid eebba uga shukriya waxa uu siiyey, wax wanaagsanna ku ducaysta mustaqbalka. Wuxuu had iyo jeer xoogga saari jiray howlaha horyaala ee ma ahayn mid ku xira mustaqbalka ay dhacayaan ama mustaqbalka ay xaaladdu sidaa noqon doontaa. Eebba wuxuu qur-aanka ku leeyahay, haddii aad igu shukrisaan waa idiin siyaadinayaa. Aayaddan waxayna tusaysaa sida ay laga maarmaanka u tahay inaan eegno xaaladaha hadda taagan oo nimcada eebbana siiyey aynan marna ilaabin, innagoo mid kale oo aynan hayn raadinayna. Qoraaga Eckhart Tolle wuxuu ku yidhi buuggiisa The Power of Now, si dhab ah u xaqiiqso in xaaladaada hadda ay tahay midda dhabta ah ee aad ku sugan tahay. Marxalad mustaqbalka ah oo aad ku xirto waxa aad jeclaan lahayd adigoo ilowsan tan aad hadda ku sugan tahay iyo waxa aad hadda awoodi karto waxay ku gelinaysaa marxalad go'doona. Wax walba oo aan doonayno maanta ayay shaqo nooga baahan yihiin. Maadaama waqtigeennu aad qaali u yahay oo uu yahay qayb ka mid a cimrigeenna, sax ma ahan in howlihii aan maanta qabsan karnay aan u ilowno kuwa mustaqbalka maskaxdeenna ka guuxaya. Nabigeenna sallallahu calayhi wasallam wuxuu leeyahay, ha eegina kuwa idinka sarreeya ee waxaad eegtaan kuwa idinka hooseeya. Taa ayaa in badan idinka ilaalinaysa inaad noqotaan kuwa aan ka mahadcelin wixii eebba siiyey. Daqiiqad walba oo noloshaada ka mid a waa muhiim, waxaadna uga faa'iidaysan kartaa wax adduunkaaga iyo aqaradaada ku anfacaya. Dr. Joe Dispenza ayaa buuggiisa Breaking the Habit of Being Yourself wuxuu ku sharaxay sida habfakarkeenna nolosheenna u jiheeyo, isagoo yidhi, halka aad ahmiyad gaara siiso waa halka aad awoodda gelinayso. Haddii aan si kale u dhahno, had iyo jeer haddii aad ka fakarayso berrito, maanta tabar uma helaysid. Haddii aad maanta dayacdana, waxaad khasaarinaysaa noloshaada maalinlaha ah. Haddaba maxaa inala gudboon si aynan u dayicin waqtigeenna? Marka ugu horrayso ku dadaal inaad ilaaliso 5 salaadood. Ka sokow inay u wanaagsan tahay aakhiradaada, xitaa adduunkeenna ayay anfacaysaa, sida eebba qur-aanku inoogu sheegay. Maxaa yeelay salaaddu waxay kaa celinaysaa xumaanta iyo macaasida, waxay sidoo kale naga dhigaysaa kuwa soo jeeda oo maalintooda aad ula socda. Howlahaaga maalinlaha qabso adigoo alle la kaashanaya. Maalintaada dib u xisaabi sida maxaan sameeyey maanta. Qoraaga Eckhart Tolle wuxuu leeyahay, waxa keliya aad haysato noloshaada waa hadda. Berrito waa mustaqbal, shalayna waa tagto, laakiin maantu way taagan tahay. Waxayna naga mudan tahay inaan ka faa'iidaysanno intii aysan noqon tagto. Imaam Xasan al-Basri Allah u naxariistay wuxuu yidhi, adduunka waa 3 maalmood, sida shalay oo la tagtay wax walba oo ku dhex jiray, berrito oo aadan arkayn, iyo maanta oo aad adigu leedahay ee wax qabso. Islaamku wuxuu ina farayaa in daqiiqad kasta oo nolosheenna ka mid a aan ugu noolaanno sida inay tahay tii noogu dambaysay. Xigmadda waxayna tusaysaa in waxa keliya ayaan leenahay maamuli karno inay tahay waxa hadda taagan. Sidaa darteed, ha sugin inaad nabad hesho, jacayl hesho ama dhaqaale hesho. Hadda bilow, maanta ayuu eebba deeq kuu siiyey, berritana isaga u daa. Aad baad ugu mahadsan tahay dhegaysiga barnaamijka. Eebbaha kuu barakeeyo maalintaada, ha kaa cafiyo wixii tegey, hana kugu hago mustaqbal wanaagsan. Midna ha ilaawin, awooddaada waxay ku jirtaa waqtiga hadda taagan. Magacaygu waa Xasan Nuur. Mahadsanidin.